Sheekadii kabatalaha waa sheeko ka warramaysa kabatalo faqiir ahaa haddana xariif ahaa oo ku noolaa tuulo yar. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu ka soo rawaxay suuqa isaga oo dameerkiisii wata lacagna sita. Isaga oo dariiqa ku soo jira ayaa waxa ka soo horbaxay nin tuug ah. Kabatalihii ayaa naxay waxaanu ka baqay inuu lacagta ka qaato. Kadib waxaa maskaxdiisa ku soo dhacday fikrad cajiib ah. Lacagtii uu sitay ayuu qoorta u geliyay dameerkii. Tuugii ayaa markii uu lacag ka waayay ayuu isku dayay inuu dameerka ka qaato. Laakiin kabatalihii wuu bariyay waxaanu ka codsaday inaanu dameerka ka qaadin. Waxa uu baryaba dameerkii ayaa ciyay kadibna lacagtii ayaa ka soo dhacday. Tuugii ayaa ka yaabay dameerka waxaanu mooday inuu dameerku lacag sameynayo marka uu ciyo. Tuugii waxa uu ka codsaday kabatalihii inuu dameerka ka iibiyo kadibna uu ka iibiyay. Kabatalihii waxa uu tagay gurigiisii isaga oo lacag badan sita. Tuugiina gurigiisii ayuu tagay isaga oo dameer wata. Habeenkii oo dhan ayuu sugayay inuu lacag sameeyo dameerku markasta oo uu ciyo. Laakiin bilaa faa'iido dameerku mid lacag sameynaya muu hayn. Aroortii markii ay gaadhay tuugii ayaa xanaaqay wuxuuna damcay inuu lacagtiisii soo ceshado dameerkana u celiyo kabatalaha. Kabataluhu waxa uu sii ogaa in uu tuugu iman doono gurigiisa si uu lacagtiisa u soo ceshado. Kadib islaantiisii ayuu ku yidhi waxaan tegayaa beerta. Haddii cidi kaa weydiiso waxaad ii soo dirtaa eyga xaafadda. Tuugii ayaa imid gurigii wuxuuna weydiiyey islaantii xagga uu joogo ninkeedii. Islaantii ayaa u yeedhay eygii waxayna ku tiri orod oo u yeedh kabatalihii. Eygii ayaa tegay beertii in yar kadibna waxaaba la arkay kabatalihii iyo eygii oo soo wada socda. Tuugii waxa uu la yaabay sida uu eygu wax u fahmayo. Kadib waxa uu damcay inuu ka iibsado eyga waanu ka iibsaday. Maalintii dambe tuugii ayaa doonay inuu suuqa tago waxaanu reerkiisa ku sii ballamiyay haddii cidi kiin weydiiso ii soo dira eyga. Wax yar kadib tuuga saaxiibadii ayaa gurigii imid waxayna weydiiyeen mee odaygii reerku. Sidii uu horeba ugu sheegay reerkiisa waxa loo soo diray eygii si uu ugu yeedho laakiin eygii waxa uu toos u tegay xaafaddii kabatalaha. Ninkii tuuga ahaa ayaa ku soo noqday gurigiisii waxaanu xaqiiqsaday in la khiyaameeyay mar labaad oo aanu eygu ahayn sidii uu moodayay. Waxa uu go'aansaday inuu ka argoosto kabatalaha. Kadib waxa uu u yeedhay niman kale oo ay saaxiib yihiin isla markaana iyaguna tuug ah. Isaga iyo saaxiibadii ayaa tegay xaafaddii kabatalaha. Laakiin markan umuu socon inuu lacagtiisii soo ceshado balse waxa uu socday inuu kabatalaha kaga takhaluso oo uu dilo. Waxa uu damcay inuu kabatalaha jawaan ku rido kadibna uu webiga ku tuuro si aan loo helin meydkiisa. Tuugii waxa uu sameeyey sidii uu rabay. Iyaga oo waddada ku sii jira oo sita jawaankii kabatalaha lagu riday ayay yara luloodeen waxaanay is yidhaahdeen in yara gam ah si aad socodkiina u sii wadataan. Nimankii tuugta ahaa oo hurda kabatalihiina weli jawaankii ku jiro ayaa waxa soo maray waddada nin socota ah oo hanti badan wata. Isla markiiba kabatalihii waxa maskaxdiisa ku soo dhacday fikrad cajiib ah. Isaga oo ku dhawaaqaya ibadbaadi ibadbaadi ibadbaadi. Ninkii socotada ahaa ayaa weydiiyey sababta jawaanka loogu riday. Kadib kabatalihii ayaa ugu jawaabay waxaan ahaa nin boqor ah. Tuulo ayaan maamuli jiray laakiin waan ka soo baxsaday. Waxaan doonayaa inaan nolol caadiya ku noolaado. Laakiin dadkii tuulada ayaa isoo xidhay waxayna rabaan inaan weli boqor u ahaado ee meeshayda adigu gal oo boqor noqo. Ninkii socotada ahaa ayaa la dhacay hadalkiisa. Waxa uu ka furfuray jawaankii kadibna kabatalihii ayaa ku xidhay jawaankii ninkii socotada ahaa. Saacado kadib tuugtii ayaa soo toosay markaasay qaadeen jawaankii. Markii ay gaadheen webigii ayay ku dhex tuureen jawaankii. Iyaga oo faraxsan oo moodaya inay kabatalihii dileen ayuuba ka soo horbaxay isaga oo wata hantidii ninkii socotada ahaa oo ah kii webiga lagu tuuray. Tuugtii ayaa fajacay waxayna su'aaleen kabatalihii
xageebaad ka soo baxday, sahalkeebaad ka keentay waxaan oo hanti ah. Kabatolihii ayaa si dhib yar ugu jawaabay, webiga hoostiisa waxaa ku jira dahab iyo hanti badan. Waxaanoo hanti ah eed arkaysaanna webiga hoostiisa ayaan ka keenay. Nimankii tuugta ahaa xamaasad ayaa qaaday, waxayna ka codsadeen kabatolihii inuu dhammaantoodba jawaan ku dhex rido, kadibna uu webiga ku tuuro. Ninkii kabatalaha ahaa sidii ay ka codsadeen ayuu sameeyey. Kadibna gurigiisii ayuu ku soo noqday isaga oo bad qaba, hanti badanna wata.